muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya mar waliba waxay u baahan tahay kordhinta iyo sare u qaadida bilicdeeda hase yeeshee arrintan baryahan dambe lawaa marka laga reebo qayb yar oo kamid ah xilli roobaadka guga oo muqdisho ka hore si fiican aan loo hagaajin biyo fadhiisidka magaalada iyo meelaha qaar oo gudaafad lagu shubo ayaa waxa ay hoos u dhigtay bilicda caasimadda tusaale xarunta wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta hoosteeda waxaa jira goob yaro biyo fadhiisid ah goobtaasi haatan waxaa yaala biyo muuqaal ahaan bedelmay waxaana u sii dheer in goobtaasi labada dhinac dhagaxaan lagu jaray dhibna ay ku qabaan dadka deegaan ahaan u agdegan dhismaha matxafka qaranka oo si isxilqaan ahaan lagu dhisayo dhabarkeeda dambe waxaa yaala qashin fara badan taasoo muujin weysay dhismaha ku socda xarunta laamiga yaree ka dambeeya xaruntii hore ee neeyo waa goob lagu shubo qudradda ka xumaata suuqa xamarweyne waa meel sidoo kale mar haddii aad martid mar kale aanan nafsada ku siinayn inaad martid laamiga kala qaybya degmooyinka shibis iyo boondheere ee ka baxa isgoyska jubba kuna eg isgoyska 4 darjiino waxaa jira goob yaro biyo fadhiisid ah goobtaasi socodka caadiga iyo gaadiidkuba way ka caagaan xilliyada ay biyaha fadhiyaan mana jirto cid biyaha ka qaada inay iskeeda u qalasho mooyee sidoo kale waxaa la mid ah laamiga ka baxa isgoyska Zooba ee taga degmada Wadajir Cabdicasiis Maxamed waa darawal kaxeeya bajaajta halka Cabdi Mucu isna uu kaxeeyo gawaarida dadweynaha ee biilka loo yaqaano labaduba waxay ii sheegeen in shacabka ay qaadaan ay cabasho ka muujiyeen goobaha biyo fadhiisidka iyo gudaafada ay taalo maadaama aysan istaagi karin rakaabna aysan ka qaadi karin anigoo aan bajaajla ah bulshada Soomaaliyeed maalmahan dambe waxay nagu dhabsadeen markii aan wadano wasaqada magaalada oo aad u soo tiro badatay qaasatan eenay dhabarkeeda dambe oo aad iyo aad u qurayso baana meeshii muraayada wadanka haddii muqdisho maanta ay noqoto meesha ugu quruxda badan gobolada kale oo dhan way nadiifadoobayaan dawladda waxaan ka codsanayaa xilliyaadka roobaadka magaalada waxa ku soo bato deeqo inay fadhiistaan nadaafad daro dawladda waxaan ka codsanayaa magaalada bilicdeeda inay ka shaqeyso marmarka qaar marka roobku da'o magaalada bilicdeeda hoos bay u dhacdaa marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay dareensiiso magaalada quruxdeeda iyo waxyaabaha kale la xiriiro si anaga oo isticmaal wadooyinka waaweyn waxaa jira sidoo kale goobo kale oo magaalada muqdisho ka mid ah kuwa gudaafad iyo biyo fadhiisid ah dadweynuhuna ay ku dhib qabaan warbixinteedana aysan xusin diinta islaamka ayaa waxay qabtaa in lagu dadaalo nadaafadda lagana fogaado waxyaabaha nadaafad darida keenaya halka saraakiisha caafimaadkana iyaguna ay qabaan in goobaha qashinka ay yaalaan iyo wadooyinka biyo fadhiisidka ah laga qaado cudurro waa kan Dr. Maxamed Muqtaar Qaasim oo arrimahan ka hadlaya inta badan xanuunada laga dhaxlo nadaafad darida iyo biyo fadhiisiga inta badan waxa u badan xanuunada xilliga duumada aad u badata xilliyada biyo fadhiisiga dadka intooda badan ma ku baraarugsana xilliyada roobaha iyo meelaha markay biyo fadhiisi badan ay sameeyaan inay meeshaas kanaaca iyo marka ay ka dhalanayso taasna ay keenayso xanuunka inay sii badiso xanuunka duumada oo hadda dunida dhan electir loogu diyaar garoobay inta badan waxa kaloo sii dhasho oo shuban biyood oo isagana wasaqda iyo waxyaalaha marka la macaamilo ilmaha inay ka qaadanay u badan tahay waxa kaloo sii dhasho inta badan xanuunkan ilmaha inta badan jirkooda dhiiqada iyo waxyaalaha ay ka dhaxlayaan maqaarka iyo waxyaalahaas xanuunada ku dhacana aad ay u bataan xilliyada oo nadaafad xumada ku imaado wadada Makal Mukarrama ayaa ka mid ah goob gaar ah oo dawladda ay nadaafadeeda xoogga saarto hase ahaatee laftirkeeda ma gaarsiisana heerka loo baahnaa waxaa sidoo kale caqabada qayb ka ah bulshada oo aan ilaalin deegaanka iyo nadaafadda kana fikirin muhiimadda ay arrintaasi caafimaadkooda ay u leedahay